dhegaystayaal aan idin xusuusiye ka sokow geeraarkii qaadsha balas ee barnaamijkii toddobaadkii hore aydinku maqasheen waxaa isaguna jiray gabay ay isku ujeeddo ahaayeen lala tiriyey 8 sano kadib dhowaan bay daraawiishi ka soo guurtay gelingaale iyo gudbo ayl oo ay dhowr gu fadhiday waxay degtay taleex oo bartamaha dooxada nugaaleed ku taal qalcado dagaal oo afara ayuu sayidku halkaa ka abuuray afartooda mid walba wuxuu ugu waqlalay magac cadowga daraawiisheed uu ka argagaxo waa silsiladoo waa midda ugu weyn waa eegi ama daar ilaalo oo waa tan ugu dheer waa faraad oo waa isaga degaankiisa iyo halka ay khusuusida ku kulmaan tan afraadna waa daawadoo iyada martidiisa ayuu gaar uga dhigay taleex markuu inta ebiyey oo xarunta ka dhigtay ayuu dhulka u tusan oo idin wuxuu ka abuuray qalcado kale oo iyada laga ilaaliyo qalcadahaas oo tu walba uu ciidan dhigay waxaa ka mid ahaa ceel la qoday oo qarna laga taagay iyo buraan oo xagga bari taleex kaga toosan taasna waxaa dareensaday boqor cismaan iyo garaad maxamuud cali shide oo labadooda iyo daraawiishi ay col xiiro ah ahaayeen waxay u qaateen dhulkii iyo dadkii ay u talinayeen inay daraawiishti hoosta ka soo gashay haddii aan laga gaarinna ay ku xidhiidaysan doonaan taana kuma ay gabsanayn dabadeed labadaas nin oo madaxda ahi waxay abaabuleen 2 col oo mahiigaana 10,000 oo ninna kor u dhaafay maalin loo ballamay bay intay bari iyo waqooyiba kaga soo duuleen ciidanka xaddigaas leh qalcaddii buraan ku soo carcooriyeen daraawiishtii halkaa joogtay inkastoo aysan 50 nin wax quman ka badnayn haddana si kastaba waa la yeelayoo waa la muquunin waaye markaas buu colkii reer barigu 2 qalcadood ee ay ku jireen hareeraha dab kaga shiday halkaasna waxaa gubis ku naf waayey 45 darwiish taasoo ah dhacdo hadday maanta dhici lahayd dembi dagaal loo aqoonsan lahaa raggii tirada yaraa ee xasuuqaas ka badbaaday ayaa xaruntii degdeg ku gaaray markaasna wixii dhacay daraawiish uga warramay iyagiina 2 qalcadood dib u qabsigooda iskuma shidayne shax kale ayay degeen intay daba marteeyeen bay waxay duulaan ku ballaariyeen qaar ka mid ah kolkii horeba degmooyinkii buraan lagaga soo duulay markaas bay rag intay heleenna laayeen xoolo wixii geyiga joogayna horta soo marsadeen waxaa la yidhi beelo idil oo hodan ahaa baa maantaa cayr fara madow isku waraystay waase siday ahaan jirtay reerihii la moora duugay baa tashi isugu noqday yaa hebel ahaa iyo yaa maali jireeyey qayladaa wiilatay boqor cismaan iyo garaad maxamuudna waxay guddoomiyeen in xoolihii la daba qabto oo col daraawiish ka soo dhiciya la qalqaalo taasina waa u meel martay ha yeeshee maantaa colkii ay dhuleeni daraawiish kama macaashin xoolana kama soo dhacsane haddiiba inta laga ilhelay ayaa rag badan laga gabawaray welibana si xun inta loo baqa eryey baan buur iyo bannaan toona looga hadhin goobtaasi banka turruje ayay ka dhacday waxayse ku caanbaxday habar humbulle waa 11 Agoosto sanadkii 1911 dabadeed intuu baaldheer gashaday ayuu sayidku dhacdadaa ka tiriyey gabay guulkufaanahoo gabayadiisa kuwa ugu culus lagu tirin karo tudcyadiisana ay ka mid ahaayeen daa'imow allahayow adaan dunida moogeyne daandaansi inaa aadanaa loogu dawgalayo dayn nimaan ka qabin buu nafluhu dabagelayaay guutada la soo dumay haddiina lagu soo duushay wax la soo dandaanshaba haddiina la dulgawdiidsay dildilaaca waa beri haddiina lagu soo daayey qayladu dalluuntaye haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dawlad alabkeede ma dulkeennay kuman duub cadoo wada daraawiisha digri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay sidii aardaloombi markaan ugu dilnaahiyeyey dullihii shareeraa markuu dib uga jiiraayey daanyeerku meeshuusan marin dani ma jeexsiisa niman yow af 2 daan leh baan muranka daynayna daleeraha cillaha lagama shubo hadal daleereede ma duqaynay
reer bari wuxuu doonayuu helayeen. halkaas habar humbulle guuldarradu ka raacday waxaa la soo duulay Axmed Cali Xirsi nin magaciisa lagu sheegay. wuxuu ahaa sabool aan bogiisa bog ka xigin, isla markaas naxaas ah. sida la ogyahayna fardaha ayaa ahaa waayadaas gaadiidkii ay Soomaalidu ku duuli jirtay. taas awgeedna nin waliba wuxuu ku dadaali jiray inuu tabcado siga baxdow ah ama geeyo ladan oo haddii colkiisu guulaysto uu ku saami qaato. col waliba se wada faras ma ahayne dagaalyahano lug ah ayaa ku jiri jiray. maantii habar humbulle raggii iyaga oo lug ah daraawiish wax uga duulayna ayaan darradiisa waxaa ka mid ahaa Axmed Cali Xirsi. inkastoo aanu faras lahayn haddana Axmed hamigiisu wuxuu ahaa haleelada daraawiisheed ee nugaal daaqaysa inuu qayb ka soo helo, sidaasna isaga iyo qoyskiisu ay saboolnimada ku sagootiyaan. rabbise kama aqbalin. geel uu soo helo iska daayey dhowr jeer ayuuba sigtay. mar uu geelo hoostood cabdada kula cararo iyo mar uu meyd iska dhigaba si dhib leh ayuu fardooleydii wadaadka kaga badbaaday. dabadeedna cagaag iyo fara maran isaga oo la daran baabi'aya ayuu galabtii dambe qoyskiisii ku soo duldhacay. markaasba haddiiba waxay indhihiisii qabteen gaban yaroo uu dhalay, gaban uu carruurta ugu jeclaa, asii galabtaas aad u dalleensan oo diyahaal awgiis aan tiraabba soo celin karin. waa aabbee darxumadii wejiga wiilka ka muuqatay intuu dhab uga tiiraanyooday ayuu hoos isu canaantay. malaha haddaad la joogi lahayd sidan wuu dhaami lahaa ayuu is yidhi. isla markiibase intuu isu cudur daaray ayuu ku garnaqsaday oo darxumadiisa ma waxbaa la iga saari karaa, sow isaga umaan xoogsi tegin. wixii habar humbulle iga qabsaday hadduu ogaan lahaase sow isaga qudhiisu ima garaabeen. gabankaas oo biraale la oran jiray intuu ku halqabsaday ayuu habeennimadii Axmed Cali tiriyey gabay wuxuu la soo kulmay uu kaga warbixinayo tix gaaban oo uu naftiisa cudurdaar ugu doonayo, isla markaasna uu inoogu sheegayo col fardooley ah oo lug lagu raacaa halista ay leedahay. wuxuu yidhi: biraalow haddaan ku hagradoon haydha ku haleeyey, hawd iyo nugaal sare hadday himila ii qaaday, haladoonadkaygii hadday haabi iga raacday, hareeraha hadday naga gasheen, xamar la heenseeyey yaa hebel lahaa, iyo hadduu hadal ka soo yeedhay ninkii faras lahaa maalintaa, halabsay oo fuuliye lugay hoogto, maantii maxaan hiifay orodkayga, habar humbulle habaaskii ka karay, hooggii niman joogin halaa kama maqnayn, ruuxi baan hadhinin mooyaane.